gudoomiyaha gobolka Baran Maxamuud Xaamid Cumar oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Yube ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkii ay maalinimadii shalay ku soo qaadeen maamul goboleedka Puntland waxaana uu ka waramay sidii ay iskaga dufaaceen iyo khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay iyo sida iminka xaaladdu tahay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waxaan rabaa inaan cadeeyo xaaladii shalay ka dhacday deegaanka Agadaftimo waxaan safar kaga nimay magaalada Argaabo waxaan soo gaarnay degmada Agadaftimo abaaro 10 subaxnimo halkaas waxaan ka helay soo dhaweyn balaaran aan dadkayga la joogno wax yar kadib ayaa waxa aan la kulanay weerarkaas oo ay noo geysteen dabley ka soo jeeda maamulka Puntland nasiib wanaag ciidankii la socday iska caabin fiican bay sameeyeen khasaaraha dhinacayga soo gaaray waa laba askari oo ka tirsan ciidamadii ilaaladeeda ahayd iyagana khasaaraha gaaray hal sarkaal waa ka dilay hal sarkaal waa ka dhaawacnay afar ciidanka kalena saddex ciidanka kalena waanu ka dhaawacnay hal gaari waan ka qabsanay anagu markaanu ummadayda u imanaynay dib iyo mashaqo iyo rafaad midna umaanaan socon nimankaasu cidna uma tureen shacabkii xabadii la soo galeen maatadii iyo maxasi oo Agadaftimo joogta ayay wax u isticmaaleen qori aan la aqbali karin ciidanka ila socday iyo ciidankii qaranka oo ku sugnaa Yubeba waxa loo tuuray dadka maatada ah ee jooga Agadaftimo dadka ku soo duulay waa dadkoodii ay joogaan Mudug iyo Qandala laakiin ciidanka aniga la socday waa dadkii deegaanka deganaa waa dareemi kartaa nin eedadii habeertii ay joogto Baran inuu ga turayo laakiin ninka Mudug ka yimi iyo ninka Qandala ka yimi inuu sii baabiyo ayuu rabaa waxaan rabaa inaan fariin u diro ummadda ku nool gobolka Baran aan iraahdo midaan idin turayn yaanu idin furin ma rabno dadkaygana inuu dawladeyno laakiin haddii naloo dawladeeyo anana waanu dawladeyn waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada ku dhaqan gobolka Baran waayeelka iyo waxgaradka dhalinyarada oo yahay mid walba inay ka fikiraan cidda nabadooda ilaalinaysa waxaan arkaa in badan oo ku jirta haro wanaagsan deegaan wanaagsan xaalad wanaagsan laakiin danaynaysa in waxa dhib tahay aan fahansanayn oo kula dhaxgabanaya maatadii iyo caruurtii Baran joogtay xaaladaas shalay waa laga warayay miidiyaha anaga waxba naguma saaganayn wararka ku taana baa waxay sheegayaan in gaarigayga la qabsaday gaarigayga gacanteedu ku jira gaariga ciidanka qaranka ee barta la asqaray gacanteedu ku jira xalay waxaan ku sugnaa Agadaftimo saaka waxaan soo kicitamay hawl shaqo waxa jooga deegaanka Yube halka waxa ku sugan cutubyo kamid ah ciidamada qaranka Soomaaliland xaalad baan hadda ku jiraa shiradeed insha Allah taala kuma jiro waxaan mar allaba mar rabnaa inaan walaalo aan wax u kanno laakiin waxaan rabnaa in aan dunida iyo horumarka ka shaqeyno laakiin haddii ay timaado insha Allah dawladda Soomaaliland istifaacaysa way istifaaci doontaa sidii u difaacday asnaanood iyo tukarraq ayay u difaaci doontaa magaalada Baran Cabdiraxmaan Maxamed Xidig telefishinka Ariel Erigab adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida